haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto sheer dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato like maaha lacaga noo saar please subscribe like and share thanks marka insha Allah midda kale oo aan isleeyahay bal ayadan aad yara taabataan oo aan ayadana ku fakiray waxay tahay raggii waan garanay oday dhaqameedkii meesha ka qoransan tahay waanu garanay marka dumarka laftigooda qayb waanu ku leenaho waxa weeyaan hooyadii wiilkay dhashay markuu dhibka geysto iyadii baa qaranaysa oo tigid u goynaysa oo wadankii ka saaraysa oo diraysa marka waxaad moodaa in dhibka dumarka laga galayo uusan ragga kaliya ku dhamayn dumarka laftigoodina qayb ay ka leeyihiin ilaa ay ayagana qaybtooda ay u soo istaagaan oo ay sidan u leenahay wiilasha kii dhibka geystay wiilalo iska soo saara ragoo iska soo saara in dumarkina ay kii dhibka geystay hadday dhashay iyo hadduu la dhashay iyo hadday u dhaxday iyo haddii oo maaragtay uu in adeerkeed yahay inay tiraahdo dhibkan hebel baa geystay hana laga saaro si uusan qof kale dhaawac u gaarsiin adigu haddaad qariso qof dambiile ah adna maxaa tahay dambiile kale haddii aad adigu qariso oo dambi kale hadhow geystana maxaa tahay dambigaas kale u geysan doono future-kana lug baad ku leedahay qayb baa ka tahay mid baan isweydiinaynay oo ah gabdhaha hadday sheegi lahaayeen arrintan markii gabdhaha dhibaatada loo geysto waxaa laga yaabaa gabadhii inay hadday hooyadeed la wadaagto ama walaalkeed la wadaagto ay baqayso oo ka baqayso waalidkii xataa inay yidhahdaan ama hooyadii xataa ay tiraahdo ha sheegin waayo cidilo kuma guursanayso marka iyadoo dulmano ah oo dhib loo geystay iyo waxa la isugu daray qofkii kaliya ee ugu horeeyay oo ay aamintay ee islahayd maanta garab aad ka heshid oo ahayd hooyo kale inay tiraahdo aamu waa laguma guursanayo haddaad sheegtid gabar la kufsaday cidina ma guursanayso waagii hore laakiin waxay ahaan jirtay aan maqli jiray ninkii baaba guursanayay gabadha ninkii kufsaday baa guursanaya hadhowna muxuu ka qaadayaa inuu yidhaahdo qofba maadan ahaan lahayne anigaaba ku guursadayo haddii kale cidinaba kuma guursateen marka taas iyadoo awal aan maqli jirnaa haddana waxaa gabdhihii loogu daray in hooyadii ugu horeysa ay tiraahdo aamu lagu guursan maayo oo gabdhihiiba sheegi waayaan taa marka maxay idin la tahay iyo gabar ayada la dulmay oo la leeyahay lama guursanayo kulay programkan uga hadalnay arrinkaas isaga hooyada in maaragtay gabadheeda in la guursado darteed ama gabadhii laftirkeeda yani familkii ay ceeb noqoto oo iyagoo ceeb ka cararay inay gabadhii maaragtay dhibkeedii qariso ay aamusiyaan marka waaban ka hadalnayba arrinkaas oo marka waxaan kula talinay waalidka Soomaaliyeed hooyooyinku in aysan marnaba inaysan gabdhahooda ka dooranin ceeb iyo wax ceebtu waa wax bari dhamaanaya waxba ma qof laakiin dib loo geystay waxa weey haddaad samayso oo daboosho barita haddana gabadhaada kale ku inaad qarin marka mayo dhibaato weyn anigu waxaan isleeyahay background-kayga waxa weeyaan psychology marka hadda markaan arrimahan arko oon gabdhaha waliba la hadlayo waxa ugu weyn oon ogaaday waxay tahay in qofka markuu yiraahdo dulmanaan ahay ama dhib baa la ii geystay uu nooga baahan yahay waxa ugu horeeyo nooga baahan yahay inaan niraahno I believe you waa ka xumahay inay dhibkaas ku soo gaaray laakiin ma helaan taas gabdhihii oo waxa waa intii la rumeyn lahaa waaba la aamusinayaa oo the culture of shame ama in la isku ceebeeyo wax walba ayadoo qofkii uu dulmanan yahay marka kulligay waxa baleeyaa taa waana looga baahan yahay in qofkii markuu dulmanan yahay oo dib la gaarsiiyo aan anagu niraahno waa ka xunnahay wixii ku soo gaaray maxaan ku qaban karnaa see kugu caawin karnaa ee aanan hor istaagin inuu sheegto qofka dhibkiisa marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaan kulligeen hal dhinac uga soo wada istaagi doono uga soo wada jeesan doono isku garab siin doono rag iyo dumarba waayeel iyo dhalinyaraba arrintan way noo wada taalaa annagoo garbaha is haysanana inaan u wada istaagi doono baan rajeynayaa insha Allah marka anoo arrintii raba inaan xogaayar iska soo gabagabeeyo su'aalihiina soo koobay maxaad kula talinaysiin bulshadana daawanaysa kulligayo oo maanta arrintan aan ka hadlayno iyo xasaasinimadeeda dad badanna way igula dagaaleen aniga oo waxay yiraahdeen ubaxay arrintan waad ku noqotay marar badan baad ka hadashay horta marar badan inaan ka hadalno muhiimad ma u aragtiin oo bulshadii waxaan nagu soo batay weeye oo noo muuqdee inaan marar badan ku celcelino ma khalad baad u aragtaan mise waa loo baahan ubax horta waa mahadsan tahay arrintan haddaan lagu celcelinin ma bogsoonayso haddii inta hal maalin la sheego lagu celiyo waa sidii dee dadkan calaamada inta soo qaataan marka xorriyadda la gaaro halkaa maalin macana ka qaadanaa markay dhamaatana waan baxnaa laakiin haddii maalin walba laga dhigi lahaa dadku wadani bay ahaan lahayn soo marka arrintan in lagu celceliyo
oo aniga hadda waxaa iga soo baxday intii qodobeen sheegnay waxay u eg tahay arrintan mid collective effort inay u baahan tahay oo raggii صح iyo haweenkii صح iyo dhalinyaradii صح iyo ururada bulshada iyo ururada miidiyaha kulli inay ka wada qayb qaataan iyo dowladaba oo gacan la iska wada siiyo wax ma hal qof u taalo waa arrin inagoo dhan inoo taalo marka taladeedu waxaa weeye nin walba in uu xil iska saaro arrinkaas inuu kasoo horjeesto arrinkaas inuu cod u noqdo weliba uusan ka aamusin marka taas aan kula talinaya collective effort inaan isu nimaano cabdiraxmaan waa sida adiga hadda aad sheegtay arrinkan in laga aamuso dee inta boogta ay ka dawoobaysay xal loo helayo in laga hadlo waqti walba dee waqti allaali waqtiga chance aan u helnay program noocaan oo kaleeto inaan ka hadalno bulshada aan ku tusno ku baraarujino waa loo baahan yahay bahda shay wal media-na waxa weeyaan waan ogahay frontiga inay yihiin oo ugu horeeyaan leenka ugu horeeya waana idinka sugayna waana idinku naqaanay marka aad baa u faraxsanahay waa mahadsantiin labadiinuba horta waxaa jirto dhibaatooyin fara badan baa bulshadeena haysta halkan kuma soo koobi karno waxaa ka mid ah kufsiga aan kasoo hadalnay oo gabdhaha iyo xumaanta waxaa jirta in badan haysta caruurta gangs iyo isxabadeeyo islaaya hadda arrin cusub baa nagu soo kordhay oo ah isticmaalidda mukhaadaraadka iyo daroogooyinka sida fentanyl iyo waxyaabaha opioidka ee dhalinyarada isticmaalayaan waxaa jirtay hadda ayaan dhawid 11 caruur ah magaalada Minneapolis in qaar ay u dhinteen qaarna ilaa hadda ay koma ku jiraan oo daroogadaas ay isticmaalayaan marka ubax waa la socotaa baan filayaa bal maxaad dadweynaha kala qaybsan lahayd والله أرنتن أو drug overdose أو علمهن قاعدنا يعني تنوجو عصلت fentanyl أو كل هذا أو دواء إن مرق عن كهذا الني أو عن خاطر وحكوي ديني يرهذين دوسك علمهن وحلا لمانا يعني أما كومها يقصوا بحين أما نبكي وين يقول عيو دوسك أنت لوجو طلق علي إن صدق جبار بقاعدنا يعني إن مركز في رصيد ضدك حتى قاعدنا أن أنا جواري سنين وحي يرهذين hayga oo qofka ah galaysid ilaa mar walba daraag culus qofku qaadanayo waxa weeye talaababa mar buu ka bilaabaa meel hayba u dhalaa hayga aad ka helaysid bay yiraahdeen ayaa wuxuu yahay shul iyo shal waxa anagu dhahno oo 50% chance inaad ama dhimato ama 50% chance inaad survive garoobo oo haygii ugu sareey aad gaadho marka chances ayagoo u jeedo oo og ay dhalinyaradeen qaadanayaan dhibaataduna ma aha mid hal habeen bilaabatay ilmuhu anigu hadda hooyo baan ahay 3 caruur aan leeyahay kii ugu yaraa hadda 13 oo noqday so teenagers all three marka waxaan iraahdaa I have a teenagers 3 gabar iyo 2 wiil ilmihii haddaanan ayagoo yar anagu ka soo warqabin oo aanan koriimadooda waxyaabo badan aanan ogeyn dee ma ogaan kartid ilmaha Mareykanna qolba isku soo xiraan waxa laga yaabaa qolkaas wuxuu ku sameeynaa hooyadu haddaysan ka warqabin aabuhu hadduusan ka warqabin ama hadduusan ba picture ka baday ku jirin see ilmihii lagu ogaanaya marka daraagu ilmaha iskama aysan bilaabin daraagu waxa waa ka soo horeeyay howlo badan haddana heer waxaan joognaa ilmaheeni aad u jeediin oo 11 hadda Minnesota waa maqlaysan kuwii ugu dambeeyay 3 mise 4 baa geeriyoota lagu yiri qaar baa kooma ku jira marka fentanyl waxay nagu haysaa arrin culus hadda siyaalo 3 bir miya amsala bir koor ina yar baa ku dhintay waad xasuusatiin markaan weydiiyay dadka oo iraahdo maxaa qofka u dhintay waanu qarinaa ilaa hadda kama hadalno asagoon ognahay cunugii daroogo inuu u dhintay kamaan hadli karno waxaan leenahay hurdadiibu ka soo kici waayay waxaan leenahay maye wax kala ku dhacay maba sheegayno so haddii aanan la sheegaynin daraagada ilmihii dhibaatada ay nagu hayso seebaan ku badbaadinaynaa kan kale oo hadhow gadaashiisa inuu qaato laga yaabo haddii kii hadda u dhintay aanaa xataa sheegi karin rarsiyaal horta hadda anaha anaga marka taas dhibaato badan bay nagu haysaa cabdiraxmaan horta arrintaa waa arrin maxaa la oran jiray mar walba horta bulshada kusoo noqnoqda waxyaabaha keenana waa waxa ay ubax ka dhawaajisay waalidkii oon ciyaalkoodii aanan ka warhaynin muhiimadda loo baahan yahay waxay tahay in cunugaaga dee maanta iyo beri 2 beri 3 beri wuu kuu qarsoomi karaa laakiin noloshiisa intuu ka gaarayo heerkaas waxa weeyaan ma qarsoomi karo haddii uu qarsoomana dee waxa weeyaan waalidkii oo careless-ka waxba aanan ku ogeyn badee waxba aanan ku ogeyn oo dee cunugii intii waa la dhalo dee waa la socdaa waa cunugii magaaladiisu galay una marka waxa loo baahan yahay waalidkii iyo ciyaalkooda inay isku xirnaadaan ma was fuad waa mahsanta waalidka horta ka dhawaajin ubax in badanna waa laga dhawaaji waalid wax walba waalid mo sax issue-gan
haddii aan idhaahno who is to blame qof bay ku dhici inta badan waalidkay ku dhacda صح laakiin waxaa jiro elected officials dad waxaa jiro communityga programyo ku qaata inay dhalinyarada wax u sameeyaan صح inta badanna aan waxba ka qabanin sidaad u aragtaa horta wallahi haddii la yiraahdo dhibka ilmaha who to blame ama yaan u eedeynaa oo dhinahanaa saasaa keentay kulli waa u eedeysanahay community organization ma la dhihi karo lacag bay ku qaateen oo ayagaa ka mas-uula waayo anigu ilmahayga guriga community organization ilama korinayso horta anagu laftigeena waa inaan qaadano responsibilityga oo ah mas-uuliyad horta inaan iska saarno waxaan u baranay haddaan Soomaali nahay runta haddaan isku sheegno marar badan runta kama hadalno runta haddaan isku sheegno waxaan rabnaa inaan wixii gurigayga ka dhacay inaan blame gareeyo Caasho Xaliimo community organization hebel masjid waxaasoo dhan looma baahna kow waa inaan horta aniga qaato stepkayga where do I fail maxaa aniga aan sameyn waayay meeshee baan ku dhacay waarid ahaan ka bacdi waxa imanaysa markaan aniga tayda ogaado inaan iraahdo communityga haday noqoto masjidkeeni halkee buu ku fail garoobay inuu ilmihii uu wax igala qayb qaatay ilaa bay'adana way kula korisaa ubadkii community organization haday noqoto oo wax ku qaadanayana ayaguna goolkoodii ma ciyaareen qaybtoodii ayagana marka horta it takes a village to raise a child bay yiraahdaan waxay qaadataa dad dhan inay wada koriyaan hal cunug marka kulligeen horta noo taala hal qof lama blame gareyn karo waa in waalidkii qaybtooda qaataan waa in communityga qaybtooda qaataan waa in culimada diinka qaybtooda qaataan waa in organizationka qaybkooda qaataan laakiin sideeba qof walba uu qaybtiisa ku qaadanaya bay su'aasha ku soo noqonaysaa waxay ku soo noqonaysaa inaan horta joojino this blaming game we cannot blame each other waxba meena ku kordhin 30 sano waa is blame gareynaynay wali waxaanu joognaa maanta ka badan tahay fentanyl ilmeen inuu ku dhimanayo dan meeshii 5 sano ka hor aanu joognay marka waa inaan niraahno qariska waa inaan joojinaa صح horta ma qarin karno wax la qariyo maba leh cunugii wuu dhimanaya waan soo aasaya maxaan qariyaa qariska waa inaan joojinaa organization aan leeyahay ilmahaygi hay ogaadaan waa inaan joojiyaa anigu waa inaan iraahdaa haddii caawiska markaan u baahanahay ilmihii kow aan ku arko dhibaatada waa inaanan ka xishoonin hooyadu ama aabaha ama waalidku aysan ka xishoonin inay yiraahdaan war dhibaato ay haysata waxaa jira disconnection oo haddaad aragtid teenagerka ama ilmaha halkan aan ku korinayno aniga iyo adiga markaan soo ahayn teenagers sidina loo soo koriyay way ka duwan tahay sida ilmaheena hadda u korinayno annaga laftigeena waalid ahaan inaan ogaano oon aqoonsano ani uma korin karo hooyaday sidii ii soo korisay cunugayga ilmahayga intay soo horfadhiistaan bay challenge garayaan waxay yiraahdaan hooy sidan maaha hooy sidan maaha hooy sidan maaha hooyada iyo aabay kumaanan oran karin aniga sidaa waxay yiraahdaan bas weeye kama hadli karin maana waalid ah baad iga daba hadashaa li oran jiray marka haddaan doonayno waalidow inaan ku korino ilmaha sidii annagana lagu soo koriyay horta kow meesha kow aan fail garownay oo dhibka ugu horey u ka bilowday waa the disconnection ama ka labada qaybood guriga dhexdiisa waxaan ku nahay dhowr hay-adood hay-adda ciyaalka teenagerka wiilasha gabdhaha hooyadii aabihii waxaan nahay 4 hay-adood oo hal guri ku wada nool haddaa fiirisid guryaheena badankood marka horta hay-adahan aan isku keenno oon hal ka dhigno aan miis wada fadhiisano dhahno dee yanan oranin anaa waaridka ah soo raac ma jirto maxaanu ka wada qaban karnaa maxaanu ka hadli karnaa iskuulkii maxaa ka socda cunugeygii muxuu tabanayaa aniga haddii aan cunugii dhib u geysanayo igooga maaragtay aan iska dhigo isla weynida aan dhigo anaa waarida aan dhigo aan ilmihii weydiiyo hooyo maxaa xagee wax sikiyeen iyaga laftigooda talooyin lagu dari kara ilmihii marka saan sheegaba qof ma baleen garan karno waa in ilmihiina ma dhigi karno ilmihii waa bad child no there is no bad child wax cunug xun ma jiro ee cunugan waxa weeyaan dhibaatooyin baa ku keenay inuu daroogada isticmaalay waa inaan source-kii waxa keenay inuu cunugan daroogada isticmaalo aan ku hadalno meeshan society-ga bulshada dadka bulshada reedka wadooda ah in cunugii hadda for example cunugii wuba daroogu bartayba noloshiisa dhan waxay noqotayba ibray noqotay noloshiisa dhan kacay noqotay marka meelaha looga baahan yahay bulshada inay maxal li jiro garab istaagto ama ay ka hadasho inaan la midabta korin cunugii oo aan la oran maxaa la oran jiray oo wuxuuna daroogisto oo wuxuuna kana qof walba oo dee maxaa la oran jiray xun sida adiga aad sheegtay meel walba xumaanta iska bilaabatay xumaanta kuma soo dhalan qof xumaanta ku dhashay malaha marka in bulshada ay qofkii dhibanaha ahaa ee daroogada ay dhibaataysay in la soo dhaweysto wax la weydiiyo oo la dhaho maxaa la oran jiray maxaa waxaan keenay
maxaa la oran jiray maxaa noloshaada ka bedeli kartaa wuuba arkaaba dee markuu daroogada galo cunug walba oo daroogisto oo daroogada ku jira dhibku ay u keentay wuu ogyahay laakiin dee haddii uusan haysanin naxariis iyo meel uu kusoo laabto waxa weeyaan wuxuu gaarayaa un heerkii uu ku dhiman lahaa heer uu soo noqonay ma jirto marka bulshada waxaa wanaagsan inay maxaa la oran jiray ra'yi wadaag ay samayso oo ay la wadaagto cunugii maxaa la oran jiray dhibaataysnaa maxaa la oran jiray daroogada ay dhibaataysay in la weydiiyo maxaa kaa khaldan maxaan kaa caawin karnaa maxaa la oran jiray waxaa macquul ah inuu sharciga ku shaqaystaba uusan hayninba magaciisa dhanba maxaa la dhihi jiray uu ibr u noqdayba in bulshada ay caawiso oo dee hataa hoos baa laga soo bilaabee la dhaho kaale bal maxaan kaa caawin karnaa meeshaasaan kaa inaan kaa shaqaalaysiinaan isku dayaynaa oo la dhiso creditkiisa kor loo qaado كل برشة أساساً إسليه ويكو حقيقة waxay tahay our youth yaalkeeni maanta more than ever ayay noo oynayaan way noo baahan yihiin they're crying for us حتى one hug aad siiso keli ah yaa laga yaabaa inuu mataqaanaa cunugaas wax weyn inuu u yahay they need to be listened to cid maanta dhegaysanaysa ma jirto suu fuaad hadda sheegay waa la takooraya waa la ag maraya maxaa la kuwa kuwii daroogada isticmaalaya waa kuwii waa dib jir xaaladiisa kama warhaysid we all failed them society organizationadii waa fail gareeyay because situationkooda kama warhayaan shaqo inay xataa ugu baahan yahay ma oga waalidkii waa fail gareeyay waxaa weeye institution inagoo dhan baa fail gareyna marka arrinkaas inaan bedelno oo sidii kii hore aan ka hadlaynay kanna wuxuu u baahan yahay collective effort isaga laftarkiisa marka faquuqa in la joojiyo waa aad bay muhiim u tahay waan kugu raacsanahay waayo ilmihii haddii la faquuqo xagee bay kusoo cararayaan ilmihii waxaa laga yaabaa hadda ilmaha qaarkood waxaan maqlayay ilmaan la hadlay teenagers oo yidhaahday waxaana lagu tareedgareeyay in familka iyaga la laynayo haddaanan daroogadan soo iibin marka ka waran cunuga hadduu isleeyahay reerkiina badbaadi adigii noqo qofkii maaragtay sacrifice laamkii noqo oo reerkiina badbaadi waxaan marba hadduu lugta la galay si uga baxana garanayn naftiisina la tareed gareeyay saas ugu jira markaasoo kale marka aniga iyo adiga iyo waaridkii iyo haddayan kusoo noqon karin ama aysan haysanin meel oo rug oo community-ga ah oo ay kusoo noqdaan oo dhihi karaan meeshaasaa laga caawinaya dee dhibaatadooda ilmihii waad garan kartaa wuu kusii fogaanaya wixii oo waa run faquuqii iyo inay helaan meel ay kusoo noqon karaan waxaan u malaynaya aniga muhiim bay arrintaas ay noo tahay maasha allah horta waad mahadsantihiin labadiinuba aad iyo aad mar walba ubax waxaa weye waxaan kaaga mahad celinaynaa sida aad bulshada aad maaragtay waqtigaa ugu hurto ugu istaagto ugu doodo mar walbana annagu haddaan nahay bahda Sheewal Media mar walba waxaan diyaar u nahay inaan barnaamij walba inaan ku garab istaagno kaala qayb qaadano wax alla wixii bulshada wax u taraya bulshada wacyigelina inaan banaanka usoo saarno wax kasta oo bulshada u baahan tahay waadna ku mahadsan tahay you're welcome mar walbana nagala soo qayb qaad insha Allah gacmooda jir bay wax ku gooyaan baa la yiri marka waxaan nahay one community one voice and together ayaan meel weyn ku gaari karnaa marka aad iyo aad baa u mahadsantiin waa idinka mahad celinaya maanta soo dhaweyntaan iyo sidaad ii soo casuunteen iyo martiqaadkan iyo masha Allah and I support Sheewal Media all the time and programmadiinana waan la socdaa marka masha Allah waxaad aad ugu fardhubantiin siyaasadda xogaan idin duqeeye siyaasaduna aniga kuma jiro siyaasadda aniga salaam baan u saaray cidii wada haddaan dumar nahayna soddonkii xataa la yiri siyaasadda dumarka ha laga siiyo baaba nalagu haystaa maalindhood waxaan maqlayay 27 kursi baad leedihiinoo afaraaba already nalaga sii qaatay marka siyaasadda markay noqoto waxaan leeyahay meeshiina ku salaamantiin arrimaha bulshada igu ogaada siyaasadda kuma jiro